السلام عليكم كنتو عنا wanaagsan meel kasta dunida ka joogtaan ku soo dhawaada oo mar kale barnaamijyada caafimaadka mowduucna kooban maanta waxaan ka hadli doonaa xaaladaha caafimaad darro oo keeno waxa loo yaqaan diet-ka kaasoo sanadihii dambe ay dadka Soomaalida aad markaa u isticmaalayeen balse intaan mowduucna aan bilaabin waxaan xushmad ka codsanayaa inaad akoon ka saarto follow sidoo kale qayb sare linkiga profile-ka saaran YouTube kana sidoo kale noo saarto subscribe waa hagaag aan ku soo laabana mowduucina marka laga hadlayo diet-ka waxa ku keenaa saddex dhibaato oo markaa aad u daran waxaana ka mid ah inuu markaa dhibaato u geysto habka loo yaqaan metabolism marka uu keeni kara inuu fargaliyo habka markaa uu shaqeeyo metabolism taas marka khalq qoborto waxa loo yaqaan metabolism waxaan qofku warshad karaa inuu qofku dareemo gaajo xad dhaaf ah sidoo kale in qof markaa uu isticmaalo ama uu cuno xad ka badan calorie uu cuni jiray waxa kale oo sabab kara xanuunka loo yaqaan macaanka ama sidoo kale sonkorowga qodobka labaad wuxuu fargaliyaa ama sidoo kale wax ka bedela bakteeriya caadiga ah markaa ku nool habdhiska dheefshiidka taas markaa qofku qabata shaqooyin muhiim ah hase yeeshee wuxuu fargaliyaa bakteeriyadan waxaanu keenaa wax loo yaqaan inflammation tan waxay saameyn ku yeelataa caafimaadka guud ee qofka qodobka saddexaad wuxuu keenaa waxa loo yaqaan xanuunada ku dhaca wadnaha sidoo kale xididdada dhiigga sidoo kale wuxuu horseedi karaa wax loo yaqaan shalalka ama sidoo kale fadhiga balse ma cadda ilaa hadda siyaabo markaa uu keenaa markaa uu sababo waxaan ku socotay ilaa hadda daraasad dheeriya ayaa loo baahay markaa in la xaqiijiyo guud ahaan marka laga hadlayo diet-ka sidoo kale cabitaanada markaa soo hale waxaa ku jira aspartame iyo sidoo kale sucralose waana sonkoro markaa la macaamulay lagu sameeyo labka hoos holiska markaa guud ahaan caafimaadka qofka ugu dambeyntii waxaa talooyin caafimaad lagu soo jeedinaya qofka fogaado isticmaalka wax loo yaqaano diet-ka tani kula dambe nabadgelyo haddii aad u baahan tahay mowduucyo caafimaad ku saabsan cilmi baadhiso iyo sidoo kale talooyin caafimaadka ku aadan fadlan booqo barahan ku leenahay baraha bulshada sida YouTube, Facebook iyo TikTok halkaas ku helayso mowduucyo dhammaystiran mahadsanid.